موضوعنا maanta wuxuu ku saabsan yahay xanuunka caadada maxaa keeno maxaana lagu daaweeyaa. sababta muuqaalkan u duubayo waa commentigan dartiisa. daawadayaasheeda waxaa ku jiraan gabadhan oo kale. waxaa jira dad badan oo xiliyadaas ku jiro aan hadan garanayn si la isku maareeyo sababtoo ah gabadhan waxa laga yaabaa inaysan la joogin wax familka ah hooyo aaba ah qof aan hooyo aaba ahayn ama baayida ka weyn ahayn dhibaato lama wadaagi kartid sida awgeed waxa laga yaabaa family ay marti ku tahay inay la joogto ay waqtiga inaysan gaaraysan ay soo ogeen ay ku dhacay waxaan ka waran gabadhan haddii aan horseed u noqdo maanta wax qalad miyaan sameeyay dadka ii soo qori doono waxyaalahan ka hadlaysid maxaa waaye iyo wax aad ma ka hadlo yani xogaa markii aan kaga sheego ka hadlida mowduucyada markii aan bilaabay waxa ii ziyaaday cilmi aad iyo aad u fara badan sababtoo ah hadda waxaan ahay qof u diyaarsan xaaladaas markay soo marto ama baayidiisa ay ku sugan tahay sida uu garab istaagi lahaa mowduucana maanta wuxuu ku saabsan yahay xanuunka caadada maxaa keeno maxaana lagu daaweeyaa xanuunka la dareemo xilliga caadada badana ee gabdhaha ku dhaca waxa keeno laba nooc inuu yahay primary ee ay la kulmaan gabdhaha 80% iyo inuu yahay secondary ee ay keento xaalad caafimaad marka laga hadlayo xubnaha taranka gabadha way caafimaad qabaan haddaba waxaad isweydiinaysaa haddii aysan jirin wax caqabado ah maxaa keenaya xanuunka gabadha ay la xanuunsato markii ay caadada timaado markii aynu ka hadlayno primary waxa ugu badan ee xanuunka keeni kara waa chemicalka loo yaqaano prostaglandin daawadayga sharafta leh chemicalka aan ka hadlayno ee prostaglandin caadi ma ahan sababtoo ah wuxuu keenayaa inuu sameeyo contraction minka ayuu isku soo ururinayaa kullama uu minka isku soo ururiyo meesha waxa ka dhalanayo inuu meeshii dhiig soo dayso kullama uu construction uu sameeyo chemicalka prostaglandin ee caadada ka timaado gabadha waxay dareemaysaa xanuun sorry abay sidoo kale blood vessels-ka unugyada dhiigga quudinaya xaruntaas neutriska macnaha in la yareeyo oo narrow lagu sameeyo hadiiba mar dhiiggaasi narrow lagu sameeyo ama la yareeyo waxa dhacayso in qulqulka dhiigga uu meesha ku yaraado haddana haddii ay qulqulka dhiigga meesha ku yaraato oo waxa yaraanayso inay oxygen ku yaraato haddana haddii ay oxygen-tii meesha ku yaraato waxa dhacayso in gabadhii haddana ay dareento xanuunkii markii ay xanuunka dareentane oonaysa xitaa gabdhaha qaarkood sariirta ma seexan karaan dhulka seexanayaan xanuun hay dartiis sababtoo ah xanuunka wuxuu isugu imaanayaa dhabar waxa soo dhan waa ka hadli doonaa laakiin gabdhaheena ilaahay idin dhibdhaamo primary-ga badanaa waxa risk factor ku ah xaalada aan hadda soo sheegi doono horta markii aan ka hadlayno primary waa kuma gabdhaha isku arko primary waxa isku arko gabdhaha u dhaxeeyo 10 jirka ilaa 13 jirka inta u dhaxeeyaan hayukayo primary waa sheegtay haddana secondary-ga yaa dadka isku arkay marka secondary-ga waa 13 jirka ilaa iyo wixii ka sii weyn intayba gabadha caado ka imaanayso sidoo kale horta daawadahayga sharafta leh ama gabadha ah ama wiilka ah midab ku sheegaya horta waxa jira wax la dhaho family history primary-ga waxa jira dad family history ahaan hooyooyinkooda ama ayeeyaalkooda ku soo xanuunsan jiray markay caadada u timaado waxa jira ayeeyaal ilaahay ha u naxariisto haday dhinteen ama hooyayaal markay caadada u timaado aad u xanuunsan jiray sida awgeeda haddii aad wax walba samaysid ama mowduucyadan ama istabiyadan araacda fiicnaan weyday waxaad ogaataa family history inuu ku haysto hooyooyinkaaga ama ayeeyaalkaaga ay ku soo xanuunsan jireen caadada haddii ay dhacdo inay familkaaga ku soo xanuunsan jireen meesha waxaad ka qaaday family history qodobka kale maxaa keeni kara haddana inay ku xanuunsato gabadha ayadoo family history lahayn maxaa keeni kara inay mar kale haddana ku xanuunsato caadada wax kale ma keeni kara waxaa laga yaabaa gabadhu inay balwad leedahay haddii ay dhacdo inay gabadhu balwad leedahay ogow waad ku xanuunsanaysaa caadada waa bilaa shaki maxaa ka mid ah balwadda ha u malayn kaliya balwadda in xashiishka sigaarka kaliya maaha xitaa haddii aad shiishada leedahay waa balwad shiishada dhacdaysa naftirkeeda way ku keeni kartaa inaad caadada ku xanuunsato sidoo kale mowduuca ugu muhiimsan ay gabadhu caadada xanuunka ku dareemi karto wax kale ma ahani waa inay jirtaa qalqal caado wareer markii ay jirtana mowduuc qalqal caado wareer waa mowduuc weyna keeni kartaa inay gabadhu ku xanuunsato caadada halkaas waxaan ugu soo gudbayaa xaaladda primary ee keeni karta gabadhu inay caadada ku xanuunsato markii aan ka hadlayno xaaladda labaad ee secondary-ga wuxuu la xiriiraa xaalad caafimaad sababtoo ah waxa keeni kara gabadhu inay ku xanuunsato caadada waa xanuuno ka jiraan xubnaha taranka UK xishoodka uu ka tagay ma waxaana bulshada la hor imaan rabtaa wuxuu xishoon jirtay maxaa kugu dhacay saaxiibkeeyo eebno laakiin Yusuf saxab muuqaalka ma ka duubi karaa haddii aad booskeyga ku jiri lahayd fariimo qaar ay ku soo dirayaan gabdhaha teenager-ka aad arki lahayd wallahi maanta waa ka hadli lahayd waxa aniga ka hadlayo sababtoo ah cilmiga in laga xishoodo maaha cilmi laga ma xishoodo waxa kaliya hadda aad sheegaysidna waa wax cilmi waa waxa daraasad ku soo sameeyay ku dhawaad muddo 3 maalmood daraasaad aad waday cilmi aad soo
saartay bulshada la hortimaaday inaad uma inaad wax ceeb ka sheekeynaysid haddaad u faa'iideysid gawar walaashaad waxay ku caafimaadi lahayd ma ahan inaad wax ceeb sheegaysid markii aan ka hadlayno cudurrada haleeli kara xubnaha tarankana wax kale ma ahan waa macnaha xubnaha uteriski minkii fallopian tube-ka ama ovariski ugxaanta meesha laga soo daayo meelahaas inay cudur ka jiraan cudurka ugu muhiimsan ee badanaa keena xanuunka gabadhu caadadana waxa waaye xanuunkaas wax kale looma yaqaano ee waxaa loo yaqaanaa endometriosis allah haddaan xanuunkaas maanta awoodi lahaa inaan gabdhaha ka dulqaado wallaahi kumaan sii deeyeen sababtoo ah waxaa lagu leeyahay gabadhu markay xanuunkaas ay la tacaalayso ama uu ku dhaco waa qof xitaa sariir aan seexan karin badanaa dhulkay wax soo dhigtaan joodari ama dhulka caadiga oo dhulka iska seexdaan xanuunka haya awgiisa leh umadee sorry wallah cudurka endometriosis ee ku dhaca minka wuxuu sameeyayaa minka waxa uu leeyahay layer ama xuub marka wuxuu sameynayaa xuubkaasi wuxuu qabtaa wuxuu ku dahaaran yahay minka cudurkii wuxuu sameynayaa xuubka dhinacyadiisa waa idin calaameynaya insha Allah meelahaas ayuu galaya markii la gaarana xilliga caadada wuxuu ku sameysmayaa banaanka dhinaca wareega iyo macnaha ugxaanta iyo ovariska fallopian tube-ka iyo waxyaalahaas markuu meelahaasi ku sameysmo dhiigii loogu talagalay in si toos minka uu ka soo baxo ama meel uu ka baxay ma sameysmayo inuu dhiigii si toos ah u soo baxo sababtoo ah waa nabaro adigoo kaaga soo baxeen meelaha waa iska fahmi kartaa markaas waxay keenaysaa in meeshii uu ku aruuro gabadhiina ay ku noqoto xanuun sidoo kale cudurradu way badan yihiin waxaa kaloo jira cudur kale la dhaho ovarian cyst fibroidiska pelvic inflammationska cudurradaasi oo dhanna waxay la xiriiraan gabadhu in xubneeda taranka ay cilad ka jirto kadibna taasi waxa ay keenaysaa xanuun haddaba waxaan maraynaa meeshii ugu muhiimsaneed primary iyo secondary maxay ku kala duwan yihiin primaryga haddaba xanuunka wuxuu la bilowdaa caadada maalinta saas ay gabadhu caadada ugu timaado xanuunkaasi maalintaas ayuu bilaawanayaa wuxuuna haynayaa ilaa muddo hal maalmood saacadaha uu si tooska u soconayana waxaa ka mid ah 8 saacadood ilaa 10 saacadood haddii ay isticmaashana waxyaalo daawooyin ah oo xanuun baabi'i ah si automatic ah ay xanuunkii uga baxaysaa gabadha mid kale waxyaalo ugu muhiimsan ma taqaana mar walba ay gabadhu da'deeda sii kortane xanuunkaasi waa uu yaraadaa primaryga halka aan la barbar dhigayna secondary alla secondary dibadna secondaryga oo dib badan yahay wallahi dadka gabdhaha secondaryga ama dhibaatooyinkan haysto comment nagula soo wadaag insha Allah waxaan ilaahay kooga baryeena inuu xanuunka ilaahay ka qaado halka secondaryga uu yahay caadada intay soo imaanin gabadha maalmo ka hor 3 maalin ilaa 2 maalin ka hor bay xanuun dareemaysaa halka markii caadada ay timaado kadibna ilaa 3 maalmood ugu yaraan 4 maalmoodna ay la sii xanuunsanaysaa caadada gabdhaha secondary abooyin waa kana waxa idin leeyahay dhammaantiin ilaahay caafimaad taama ilaahay idin kaga baryaya insha Allah xanuunkaas markuu idin imaado idin dareemi karaa waxaaba ugu daranbo mararka qaar xanuunku wuxuu sii joogaaba inta ay caadada joogto xanuunkana waa joogaa waxa soo dhan waa laga daran yahay waxa ka daran ma taqaana markii ay isticmaasho daawooyinka xanuunka joojiya sida primary aan ku soo sheegnay way ka bogsotaa laakiin secondary gabdhaha ah markii ay isticmaasho xitaa daawooyinka xanuun baabi'iya ah xanuunkaasi waxa la dhahaa waxaan soo wadax uma aragnaba kaniiniga isticmaalaysid waxba lagu ma jeedo xanuunka meeshiisa kama dhaqaaqo waxa si kale aan meesha ka marneen halka primary aan ku soo sheegnay gabadhu marba ay weynaataba xanuunka uu ka sii yaraanayo secondary-ga waxa waaye mar walba ay weynaato xanuunka waa ka sii daraa marka hadda waxaan soo gaarnay waxaan ku weydiinayaa UKyo labada xanuun maxay ku kala duwan yihiin oo halkee laga dareemaa primary secondary-na halkee laga dareemaa su'aal aad u fiican ay weydiisay qof walba halkan ku jirana waa laga yaabaa inuu isweydiinayo halka primary laga dareemo dhabarka qaska iyo cajaraha secondary waa halkee waa isla meeshii xanuunka kala ma qaadna laakiin qaabka loo dareemayo ayaa kala duwan laakiin hal meel ayaa laga dareemaa waxaan maraynaa gabagabadii muuqaalka haddii aad gabar tahay xanuunadii aan soo sheegnayna ay hayeen waxaad xiiso u qabtaa inaad maqasho mar uun waxyaalaha ku bogsoon lahayd ama waxyaalihii primary iyo secondary labadoodaba daawo u ahaa inaad maqasho hadda waxaan sii gudagalaynaa insha Allah wixii daawo u noqon lahaa ama lagu bogsoon lahaa markii xanuunkaas aad dareento sidoo kale waxaas meesha ka marneen hadba waxaan ku daaweyn doonaa xanuunka hadduu primary yahay iyo hadduu secondary yahay xaalad walba markay taagan tahay aan ku daaweyn doonaa marka hore haddii aad ka mid tahay gabdhaha xanuunka primary-ga haayo ama aad walaasha xaaladeeda aad ka wareysid inay tahay gabdhaha primary-ga soo dhawaada waxaan idin sheegi doonaa daawooyinka lagu bogsoodo xanuunada primary-ga soo dhawaada safka hore soo fadhiista usoo banay dadka secondary aawe hore soo marsiya primary hadda primary-ga waxay ku daawoowaan xanuun baabi'iyayaasha soo socdo marka hore hadduu yahay xanuunka primary waxaan ku daaweyn doonaa gabadhu inay qaadato xanuun baabi'iyayaalka kala ah NSAID ibuprofen uu ka mid yahay diglofenka
uu ka mid yahay. daawooyinkaas waxay ka qayb qaadanayaan hormoonkii loo yaqaan progesterone ee la soo inosterone gareynayay in ay yareeyaan hormoonka. haddii ay hormoonka la yareeyaan waxa yaraanayo xanuunka gabadha. hadduu xanuunka gabadha yaraado waa macnaheedu inuu contraction-ka yaraaday. contraction-ka hadduu yaraadana ilaa markaas waxa dhacaysa gabadhu inuu markaa xanuunka ka yaraado. sidoo kalena habdhaqanka gabadhu waa inay wax ka bedeshaa lifestyle-keeda, sababtoo ah gabadhu waa in ay lahaataa exercise kulama ay leedahay caafimaadkeeda uu u fiican yahay. marka laga hadlayo xanuunada marka gaar ahaan oo gabadha lagu daaweeyana xaaladahaas oo kale markay jiraan waxa koow u soo ah inay exercise samayso. sidoo kale waxaa jirto hal mid aan kula talinaya abaayaal inaa isticmaashaan boorsada biyaha kulul lagu shubo. sawirkeeda haddaan helo waa idin soo saaraya. boorsada biyaha kulul lagu shubo waxaa samaynaysaa boorsadaas inaad saarto caloosha hoosteeda, adiga khaska ama caloosha inaad saarto boorsadaas biyaha kulul, sababtoo ah waxaa ku yaraada xanuunka. sidoo kale waxaa lagama maarmaan ah aanan rabay inaan mar hore idin la wadaago aan la sugayo daawooyinka inay imaadaan, wax kale ma ahan. waa inaad isticmaashaa daawooyinka herbalka ah sida filfisha, shaaxa lagu darsado, waxyaalaha kulul, shaaxa naftirkiisa inaad badsato, laakiin aad iska ilaalisaa inaad cabto caanaha seekaha iyo shaaxa oo caanaha ku badan yihiin, sababtoo ah sidaa wada ogtihiin anna waa ogahay, ciddi ogna way ogtahay, gabdhuhuna way ogyihiin, wax kale ma ahan. haddii ay wax caano seeka ah iyo waxa ay isticmaalayso dhiigga ayaa ku badanaya, mana jecla gabdhaha inay dhiigga ku bato. sidoo kale waxaa jirta hal tirig ama hal khiyaanaa jirto. khiyaanadaas oo ah abaa waxaan kula talin lahaa inaad isticmaasho biyaha qandaca kuleelka. markii qandaca waa taqaanaa oo fardiirka ah oo kuleelka qiyaasta ah inaad liin dhanaan ku miirto kale aad isticmaasho kale aad buu u fiican yahay, wuxuu kaa yareyn doonaa xanuunka. sidoo kale horta mid yaa idinka iloobin waxaa jirto juice lagu magacaabo kunir asam muu ahaa ma aqaan, sawirkiisa idin soo saaraya. juuskaasi waxaa laga sameeyey huruuda, aad u fiican yahay inaad isticmaasho waqtiyadaas. waxaa loogu talagalay inay isticmaalaan gabdhuhu markay xaalada ku sugan yihiin xanuunka ay dareemayaan. hayreer brimer maxsuusin fasaxa tihiin iskuulka maanta xisada halkaan inoogu eg tahay, ama xitaa haddii aad dhegaysanaysaan gadaal la soo fariista aawa gabdhaha secondary soo hormar abaayaal waqtigeeda la gaaray sidiina idin siin doonaa kasoo hormara dadka primariga. waxaan u gudagelaynaa mawduuca ugu muhiimsan ama xanuunka ugu daran gabdhaha markay dareemaan xaalada oo secondary-ga ah. xanuunkaas waxaa lagu daaweeyaa horta waa xanuuno ku imaado sidaan hore u sheegnay xubnaha taranka, waxaana muhiim ah xaalada caafimaad in la tacaalo ama goobo caafimaad la geeyo haddii ay tahay in daawooyin ay qaadato iyo haddii ay tahayba inay qalin marto. midda kale gabdhaha secondary-ga waxay u baahan yihiin in visitor loo sameeyo, dhakhtarkeeda uu mar walba ogaado xaaladeeda iyo waxyaalaha keeno inay ku xanuunsato caadada. waxaan rajeynayaa daawadaha sharafta leh inaad muuqaalkan si fiican aad u fahanteen sababta keeni karta xanuunkan aad baratay, waxaadna baratay waxyaalaha lagu daawoobo. beri hadday abaayada xanuunsato waa taqaana waxaa sameeyaa leedahay. markaas insha Allah adigana hadaa ku xanuunsata abaay waxaan ku leeyahay sidaa sameey. gabdhaha waxayna u baahan yihiin naxariis aabanimo, naxariis hooyanimo iyo naxariis walaalnimo. haddii abtiga tahay xitaa naxariis abtinimo way kaaga baahan tahay kula nooshahay. waxaan dhihi lahaa qofka u yeeshay inuu walaashiisa la nool yahay wallaahi waa iga nasiib badan tahay. waa iga nasiib badan tahay haddii hooyadaa la nooshahay, abaayadaa la nooshahay. nasiibka maanta adiga haysatay ani ma haysto. marka insha Allah haddii aad muuqaalkan daawatay aadna dhamaysatay wax badan aad faa'iido wiilo wayna ku dhacad. abaayadaana waxay noqon doontaa gabar leh wiil geesi ama walaal geesi gabar leh noqon doontaa. insha Allah muddo ayaan ku dheeraanin waxaan ku soconaa wadadii aan ku tagayn 30,000 oo subscribers dhanka YouTube-ka UK official subscribe noo soo saar insha Allah. TikTok haddii aad naga daawanaysid waxaan ku leeyahay follow na soo like na si insha Allah dhiirgelin noo tahay. Facebook page-kayga madaxa bulshada ku qoran sida arkaysiin asigana follow na soo insha Allah الله نحرز قبله